halkani waa fagaaraha Funny Football ujeedkeenu waa Kaftan Sports Barcelona maxaa daba dhigay kooxaha Talyaaniga sheekadii Malcolm Madwili wada oo Roma laga dulqaaday warkaas wax ka weyn ayaa ka dambeeyay oo ah in Arturo Vidal laga afduubto kooxda Inter Milan haatana Barcelona gacanteeda galay macquul ma ahan oo Vidalkii aan xisaabta ku darsanay ma Barcelona naga xusul duubatay Barcelona sanadkan waxay maagan tahay waayahay Inter yaa u maqan cidna uma maqna waxay qalqaalo ugu jiraan saxiixa Luka Modric qalqaalo beel Modric waxay kooxdiisa Real Madrid dul dhigtay 750 milyan oo euro oo qandaraaskiisa lagu jibin karo Cristiano Ronaldo kooxdiisa Real Madrid xilli hore ayuu dagaalku ku bilaabay dagaalka muxuu yahay Ronaldo wili ma uusan u ciyaarnay Juventus sidaas ma ahan hadalka Master Maqane Ronaldo waxa uu la socodka iyo saaxiibtinimada kala laabtay kooxda Real Madrid dhanka barta Instagram-ka aan follow ma la Real Madrid Ronaldo saaxiibada cusub ee Juventus uu ku yeeshay ayuu Instagram-ka ku darsaday micnaha cilaaqaadkii Ronaldo iyo Real Madrid ee baraha bulshada oo soo ilaada ma ay leedahay meesha safaaradaha ayaa la kala rartay laakiin Madrid waxaan kula talin lahaa in Twitter-ka iyo Facebook-ga ay iyaga uga hormaraan oo cilaaqaadka ay u jaraan Ronaldo Arsenal waa dhaarsan yihiin anaaba ka yaaban sida uu macallin Unai Emery kooxda isugu dubariday maxaad aragtay Mr. Hadda Siya oo ay Arsenal kooxaha kala dheertay war ma daawan miyaa sida Arsenal meel u saartay PSG oo 5 gool ugu dhufatay kadibna Chelsea rigoorayaal kaga badiyeen wallahi tababaray Unai Emery koox awood badan ayuu dhisay Mr. Hadda Siya ma hilmaamtay labada kulan ee ugu horeeyay Premier League inay Arsenal la ciyaarayso Manchester City iyo Chelsea waan ogahay waaba labada kulan ee horyaalka English Premier League aan ku siin doono Arsenal haddii City iyo Blues ay isdaba dhigaan Mr. Hadda Siya dhaaxaad koob iyo bilad fudeed ku bixisay markaan hay ugu soo dhisin kooxda Arsenal waan u xiisa bariyahan inaan bilad iyo koob bixiyo ee Siya Hadda Siya Arsenal koobka horyaalka Siya haddii ay sidaan ku sii socdaan ma la socotiin ganacsigii ugu weynaa ee ciyaartoy isdhaafsi ah ayaa Talyaaniga ka dhacay kooxaha Talyaaniga waa caadadood ee ceebtood ma ahan in ciyaartoy ay isdhaafsadaan laakiin markan Juve iyo Milan midna ma gaadno yaa ku yiri warkaas Higuain Caldara ayaa Juve laga soo qaatay iyagana Bonucci ay Milan ka soo qaateen marka yaa gaadan adiga la ii jawaab sida shakhsi Milanes ah ayaad ila hadashay waa inaan anigana sida marwada duqda aan kula hadlaa anaga faa'iido qabno Bonucci waa la wajiile midkii shalay ka soo orday ayaad hadana cishatay hees la wajiile in lagu daaro ayaad u baahan tahay adigana Higuain oo laba calool leh ayaan kugu qolfeenay xamaasadda iska dhaafa reer Milan iyo Juventus ee runta ka hadla aniga waxaan qabaa Caldara inay Milan ku heshay anigana waxaan qabaa Bonucci iyo Ronaldo oo la isku diray inay ku qaadi doonto Juventus Champions League aan soo gabagabayno Caldara iyo Higuain iyagana Milan dhibaato walba ay ka saari karaan warka ku xirane xilli ciyaareedka inoo bilaado reer Funny Football warwaan yahawaye Alvaro Morata muxuu isaga bedelay lambarka 9aad ee Chelsea micnaha nasiib xumo ayuu ku nacay miya adigana 9-ka mucaaradka Morata le ma ahane maxaan kala ahaan lahaa nin 70 milyan laga soo bixiyay ee Chelsea ka bixin waayay dhibaatada weerarka haddaba Morata uu iska bedelay lambarka 9aad lambarkee ayuu u bedeshay sababta ma sheegay wuxuu u guuray nambarka 29aad sababtana qoyskiisa ayaa iska leh ma tiri maadaama labadiisa wiil ee mataanaha ah Alessandro iyo Leonardo ay u dhasheen 29ka bisha July Morata wuxuu Chelsea u xiran doonaa xil ciyaareedka dambe nambarka 29aad sheekadiina sheeko kale ay ugu soo riday Master Oge adiga opta oge ahaaye ma xaqiiqooyinkana la wadaag Morata inta uu xirnaa lambarka 9aad ee Chelsea 48 kulan ayuu u saftay 15 gool ayuu dhaliyay 6 goolna waa uu caawiyay intaas leeyahay nasiib xumada lambarka 9aad ka harto lambar la bedeshay gool uu dhalanayo aragaane dhacdooyinka Funny Football kala soco idaacada ciyaaraha FM